kalinimadu waa dareen aad ku sugan tahay waqti aad ku fikirayso inay dadkoo dhani cidlo kaaga tageen. kalinimadu waa xanuunka la dareemo marka aad u baahan tahay taageero misana aad hore u heli weydo cid kaa dhageysata tabashadaada ama dhibaatadaada. assalaamu calaykum, anigu waxaan ahay maxamed faysal cali. ugu horeyn inta aanan muuqaal ka bilaabin fadlan subscribe saar channelkayga si aad ula socon karto muuqaalo kale oo xiiso badan insha Allah. sababta ka dambaysa inaad kali dareentaa waa adiga oo ugu horeyn aaminsan inaad kali tahay. waa inaad u aragto adigu inaanad haysan garab xitaa haddii ay dadka kula nooli tirabeel yihiin. waa calaamad muujinaysa inaad adigu ku qanacsan tahay inaad kali ahaato, laakiinse uu xanuunka kalinimadu awood la'aan kaa dhigay. haddaba sidee ayaad uga bixi kartaa dareenka xanuunka badan ee hurdo iyo cunnaba kaa horjoogsaday? waxaad uga bixi kartaa ugu horeyn inaad aaminto inaanad keli ku ahayn adduunka ee uu garabkaaga joogo Allah subxaanahu wa tacaala. waxaad u baahan tahay keliya inaad naftaada ku qanciso inaanad ku qanacsanayn xaaladdan aad imika ku jirto. isku mashquuli waxyaabaha ugu wanaagsan naftaada, sida inaad u samayso jimicsi iyo waxyaabo kale oo kaa mashquulin kara inaad marnaba cidlo dareento. isku qanci inaanay ahayn dadka iyo waxyaabaha dibadda kaaga maqani xanuun abuurayaal ee aad adigu caqli ahaan u aaminsan tahay inay cidladu aad u daran tahay. aamin naftaada, hana ku xidhin farxaddaada waxyaabaha kaaga maqan dibadda iyo dadka kale. is-ilowsii xitaa haddii aad baahi weyn u qabto waxa adiga kaaga maqan dibadda. ma og tahay inay dawada fikirku tahay inaad isla markaaba bilowdo shaqada waxa aad ka fikirayso? la sheekayso oo ku noqo dadka wanaagga la saaxiibka ah ee garab istaagga jecel si ay dawo kaaga noqdaan xanuunkan meelaha aanad u qalmin kaaga ilmaysiiyey. adigu ma tihid qof u qalma inuu ku sii jiro xaaladdan cabsida iyo warwarka badan, waayo waxaad wakhtigaaga ugu badan ku qaadataa barashada iyo dhegaysiga waxyaabaha xanuun baabi'iyayaasha u ah kalinimada. raalliha ku noqon inay noloshaada curyaamiyaan xaalado aad imika dawadooda ay gacantaada ku jirto. ma og tahay inay kuu bilaabmeen 365 maalmood oo ay durtadiba ka tegeen maalmo muhiim u ahaa noloshaada? waxaad haysataa fursad aad isku beddeli karto, laakiin aan wakhtigeeda la ogeyn meesha ay ku dhammaanayso. ha u aamusin si aanad uga hadhin safarka dheer, hana u hadlin si aad dadka kale uga dhaadhiciso inay garab ku siiyaan. ha sugin inta ay fursadda iyo nasiibka albaabka gurigaaga kugu soo garaacayaan ee adigu ka doono fursadaha iyo mustaqbalkaaga meelaha ugu cabsida badan ee ay dadka 99% ka cabsoodaan. haddii aad isbeddel nololeed doonayso, ha ka raadin asxaabtaada, alaabaha iyo waalidkaaga mid toona ee laakiinse ka raadi oo kici naftaada geesinimadeeda oo ku cari kuna canaano inay isbeddel nololeed oo ballaadhan la timaado. waayo noloshu ma aha bakhtiyaa nasiib, marna la helo marna la waayo. go'aan qaado, is-aaminsii inaad tahay qof ka dhabayn kara waxa uu qorshaystay wax kasta oo ka hor yimaada. kadibna ku dhaqaaq oo la imo tallaabo isla daqiiqadan oo ka bilow meesha aad kaga aadan tahay bilowgeeda. ha sugin keliya inaad bilowdo marka aad hesho lacag kugu filan, gaadhi qurxoon iyo waxyaabo kale oo la mid ah. waxaan ogahay wax kasta oo aad jeceshahay inay imika kuu bannaan tahay waxaad ku bilaabi karto, sida inaad qorto waxaad rabto kadibna aad isku daydo inaad ku sii bilowdo tallaabooyinka ugu yaryar. waayo muhiimaddu waa inaad bilowdo imika si aad u gaadho nolol aan inaba caadi ahayn oo qurxoon. isla maantaba bilow nolol cusub oo ka aragti dheer nololaha dadka caadiga ah. haa, imika bilow, waayo safarka noloshu maaha mid gaaban oo dhibaato la'aan ah.